dood adag ayay maanta ka dhex dhalisay fadhiga guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya arinta la xiriirta amniga guud ee dalka iyo tan xildhibaanada kadib markii mooshin arintaas la xiriirta la keenay xildhibaanada ayaa shaaca ka qaaday in amniga guud ee dalka uu ka hooseeyo sida uu ahaa loona baahan yahay in wax laga qabto arintaasi xildhibaanada ayaa dalbaday in loo yeero hay'adaha ammaanka ee dalka iyo wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga ee Soomaaliya runtii amniga Soomaaliya iyo amniga magaalada caasimadda Muqdisho ku noolnahay iyo amniga xildhibaanada heerkii ugu xumaayuu joogaa runtii maanta waxay joogtaa heer qof aamina la yahay meeshii ugu darnayd maaragtay ubucdii ayaa maaragtay qaraxiyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan sidaas waxaa dheer tacadiyada ay la kulmayaan dadka xildhibaanada ah ogaada dadkan cadow ay leeyihiin waxaa la sameeyey checkpointiyo kilomitir 4 ku yaala wadada jayga ku yaala waxaa leeyahay xildhibaanka halkan dhig ciidan ma ku mari karo kaligiisa lugaynaya amnigiisa ciidiisa cid damaanad qaadaysa ma jirto habeen dhaweytaana waxa nagu dhacday in la yiraahdo annagoo laba xildhibaana taliyaha waco madaxtooyada waa amar ka soo baxay waa inaad taliyaha wacatid si la inii sidaayo marka gudoonka waxa ka rabnaa maadaama waxaan u dooranay inay dastuurka iyo xeeroosaadka ilaaliyaan wax lala yaabo waxa ah inagoona dastuurka iyo xeeroosaadka aynu dhaqan gelin inaynu xeero kale raadino oo la hirgeliyo xeer waxa loo keenaa in lagu dhaqmo dastuurka iyo xeeroosaadkiiba haddaan lagu dhaqmayn maxaa xeer kale loo raadinayaa isaga aynu fulino isaga aynu ku wada xisaabtanno gudoonka aynu kula xisaabtanno innaga dhexdeena aynu ku xisaabtanno isaga ayaa sheegaya sida aynu isku maamulayno iyo waajibaadkeena saaran waxay ka dhigan tahay xildhibaankii baa muxuu ahaa wax wada oo amniga wax u dhimaaya asgarigiina waa aamin hadday saas tahay muxuu asgariga naqan karaa marka haddii asaga uu muxuu ahaa i aamini waaye aniga asagu sidee ku aamini karaa kofarkayga furaay waxa uu samayn doono marka xaaladda meeshaan taagan xaalad sahlan ma ah teeda kale qodob dastuuri ah oo qodobka 7aad faqradiisa 1, 3, 4 dhammaan ay ku caddahay haddii la jibiyey la leeyahayna taliyaha weydii soo iskama fududaanaysa mar kasta dastuurkii aan xariiq oo muxuu ahaa loogu talagalay in lagu hogaamiyo halkaana aan ku fadhino gudoomiyaha inuu anaga na gudoomiyo dastuur buu ku fadhiyaa meesha sharcigu ku fadhiyaa annagana inaan halkaan joogno madaxweyne dooranno gudoomiye dooranno sharciyo ansixino xukuumad ansixino waa isla halkii aan ku qoranay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa amray gudida amniga iyo gaashaandhigga ee golaha shacabka in ay soo diyaariyaan u yeerista laamaha ammaanka ee dalka iyo wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya maadaama xildhibaano badan ay soo jeediyeen in loo yeero mas'uuliyiintaasi si ammaanka dalka wax looga weydiiyo sidoo kale Sheekh Aadan Madoobe ayaa sharci daro ku tilmaamay dhanka kale in lagu xadgudbo xasaanada xildhibaanada isla markaana la xisaabtamayo dadka falkaasi ku dhaqaaqay guddiga amniga iyo guddiga difaaca labadaas guddi arrintan waxaan rabnaa hadda dood guuda laga dooday meel badan ay gashay madaxdii wasiiraha laga hadlay madaxdii ciidamada laga hadlay heer degmi heer gobolka laga hadlay waa arkaynay arrintan arrin la dhaliilsan kara maaha amnigana waxay u baahan runtii amniga wuxuu u baahan yahay in dhammaanteen aan ku dadaalno waa loo baahan yahay isla markaas amniga la sugay intii la yiraahdo xildhibaanada sharaftooda meel looga dhacan wax la ogolaan kara maaha dadka amnigooda la ilaalinayo koob yihiin dadka in la sharaf u baahan ay maaragtay kamid yihiin waa mataliintii ummadda Soomaaliyeed soo dooratay marka xasaanadooda in lagu xadgudbo amnigooda la ilaalin waayo yani arrin runtii la qaadan kara maaha marka arrintaas waxaan dhihi lahaa guddiga amniga iyo guddiga difaaca labadaas guddi saacadan laga bilaabo inay maaragtay qorshadaas maaragtay qorshe noo soo sameeyaan qorshe ma labadaas guddi ay soo diyaariyeen qaab rabaan ilbaabka in laga galo qaabka dadka ku haboon in loo yeero yani sida arrintaas ku haboon tahay labadaas guddi inay soo diyaariyaan baarlamaanka degdeg ugu soo celiyaan taas aniga saasan soo jeedin lahaa haddii kale waxay noqonaysaa haddii dhammaanteen aan sii wadno waqtiga naga fogaanaya guddigan waxaan ka rabnaa markii guddi wax loo diro waxaan arkaynaa guddi si u baxo iska maqan taasna midaan ka rabno waxaan rabnaa si kooban oo arrintan aan ku xakameynayno hay'adii Xuseen aan kula xisaabtamayno labadaas guddi inay soo diyaariyaan